magacaygu waa Khadra Maxamuud Ibraahim waxaan ku dhashay Hargeysa kuna soo barbaaray haddana aan ku noolahay waxaan haystaa 7 ciyaal iyo 3 ay walaashay 7 ciyaal aan anigu dhalay iyo 3 ay walaashay dhashay Allah u naxariisto walaashay dhimatay ay dhashay 10 ciyaal baan mas'uul ka ahay waxaan ahay xirfadle ku nool magaalada Hargeysa kuna shaqaysta qurxinta haweenka alxamdulillah ilaahay ayaa garab igu siiyay caafimaad taamanay siiyay iyo caqligayga buuxa horta markaad aan u imaado lixaadka horta marna ismaan oran waxba ka dhiman bilaadanka kale ka duwantayna ismaan oran marnaba maan galin niyadeyda waxa lixaadkaaga qayb baa dhiman waayo wax kasta oo bilaadan ku qabsan karo waan qaban karaa qofkan bilaadankina hadduu isku kalsoon yahay wax walba uu qabsan karaa ama lixaadkiisa ha qabo ama lixaad la aado marka kalsooni aan isku qabay iyo ilaahay oo garab isiiyay ayaan ku soo gaaray qabado badan baan la kulmay in badan oo waxa jirtay aan anigu hamigaygu ku jiray ku shaqaysan laakiin aanay dadku yiima jirin oonay aqoonba waxa jirtay waqti aanan board ama astaan la igu soo eegtaa aanan lahayn in guriga aan ku marin jiray ayaa jirtay qof baa yiima jiray adigu samir baan ku soo gaaray hadafkan shaqada ka leeyahay waa mid aanan gaarin welina aanan una dhaweynba waxaanan doonayaa inaan intan in ka balaaran oo wallahi hamigayga kama qiyaasi karo meel heer sare weeyaan haddoon adigu shaqaysto meelaha qaarna layga yaqaano oo inta badan wallahi customer badan aan haysto haddana hamigaygu uu kasii fogay intaa la talin lahaade inay hami keenaan inay horta naftooda ku kalsoonaadaan ka bacdina ay niyadooda galiyaan inay wax qabsan karaan ay wax qabsadaan oo ay fadhiga ka kacaan waayo qof hadduu qofku lixaad la yahay iyo haddii kalaba hamigu leeyahay uu gaari karaa in kastaba ha ku qaadato laakiin haddana waqti ay uu gaaraba uu gaaraya